لباقي العيون أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت waxaan ka codsanaynaa inaad sii fiirsaan muuqaal noo soo dhigno allaygna dhahdaan naguna caawisaan subscribe-ka gambaleelka yarna furataan muuqaal noo soo dhigno saad aragtaan aad baad mahadsantihiin. Alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan waxaan maanta ku soo gudbinaynaa aan doonaynaa inaan ka hadalno xanuunkan adduunyada ku haya dhibaatada oo loo yaqaan coronavirus. xanuunkaas oo dawladihii waaweynaa ama caalamka sheeganaya inaan ugu xoog badannahay ay maanta la tacaalayeen oo dhibaato badan ku hayo. ilaahay ciidankiisuna waa badan yihiin oo lama soo koobi karo wamaa yaclamu junuuda rabbika illaa hu. marka waxaan doonaynaa walaalaha Soomaaliyeed inaan halkan ugu soo gudbino xanuunkan waxyaalaha kaga hortagi lahaayeen. sayna ogsoonay dalkeenu maanta waa dal iska burbursan dhan dhaqaale haddii la eego ama dhan imkaaniyaadba caafimaad ahaan dhaqaale ahaan dhan walba waa ka burbursan yahay. dowladda Soomaaliyeedna gacanta kuma wada hayso dalka kamana warqabto dadka xaaladooda oo dadku waxay isaga badan yihiin dad iska fuqara ah oo waxba haysan badankoodu oo filiqsan oo wax diiwaan galsan oo tiradooda saxda la hayo ay jirin. marka Allah ka badbaadiyo ilaahay soo gaarsiin wabaagan dalka Soomaaliya oo dhibaato fara badan ayuu geysanayaa. Allah halkaa inaga hayo. marka dawadaas aan sheegi doono waa dawad dabiiciya oo u wanaagsan qofka bini'aadanka hadduu isticmaalo difaac ahaan oo kaga hortagi karo xanuunkaas. xanuunkan wuxuu shabahaa ama bahwadaag leeyahay inta badan waa virus sida hargabka oo kale ayuu qofka u qabanayaa inkastoo isagu dilaayahay qofka uu dilayo. marka calaamadaha lagu garanayo la soo sheegay waxaa ka mid ah dhakhaatiirtu inta badan sheegaan sida inuu leeyahay qufac fara badan, inuu qofku duuf badan leeyahay, cuna xanuun leeyahay fara badan, kadibna qofka uu gudbo sanbabada oo naas ku dhigo saa qofku markaa ay naftu ku qabato ama ku dhinto ama ay kaga badbaado labadaba way dhici kartaa. marka waxyaalaha lagaga hortagayo waxaa ka mid ah sida malabka oo malabku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha shifaa ah oo quraanka Ilaahay ku sheegay oo quraankan ku jiro suuradan baa la yiraahdaa loogu magac daray malabka saafiga la ogaado. waxyaalaha kale oo ka mid ah waxa ka mid ah iyadana loo isticmaalayo sida toonta. dalka Hindiya ilaa hadan wax kiisa lagama soo sheegin xanuunka ku saabsan. toonta ay aad iyo aad isticmaalaan oo ku dadaalaan. marka toonto iyadoo waa virus dilo weyn oo waxyaalaha bacteria dhamma la dagaalanta ama viruska jirka soo gala gurigana lagu qiijiyo ayaan kula talin lahaa oo iyadana guriga waxay ka eriyaysaa bacteria iyo waxyaalihii soo galay ee ah viruska iyo waxyaalahaas ay ka saaraysaa. sidoo kale waxaa iyadana aad iyo aad u fiican xabusida nabiga sallallahu alayhi wasallam ku sheegay xadiis badan oo yiri al-habatu sawda shifaa'un min kulli da' illa as-saam. saamkan waxa loo jeedaa huwa al-mawt. mawtku mooyaane wixii kale daawo ayay ka tahay xanuuna. marka daawooyinkaas la kaashado iyo qaar kale oo badan ayna sheegin sida geedka loo yaqaan kurkumka oo huruud ah sidana in la isticmaalo dhakhaatiirtu ay ku talinayaan in fara badan oo kamid ah in dhanaantayna la ogaado waxyaalaha dabiiciga ah oo qofku aad u isticmaalo oo gurigiisa keensado oo ku dadaalo isticmaalkooda aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay. daawasho wanaagsan si loo isticmaalo ay soo deynina inaad aragtaan waxyaalahan dabiiciga ah. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه الفائز حق
حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه. أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. رب ارحمنا بشفاعته، رب ارحمنا بشفاعته. قولوا صلى الله عليه. حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه. أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ ذرف الدموع بلا سكن، والقلب يصرخ يا زمن. والعين تذرف من أسى، والقلب عانقه الحزن. والقلب عانقه الحزن. يا وقت ليتك لم تسر للموت في خطو الشجن، فأجاب حين سألته هذه الحياة وذي السنن. هذه الحياة وذي السنن. فعرفت أن حياتنا تمضي وتأخذ منسكا. الشعر يرثي صاحبي ألما ودمعي محتتن. ألما ودمعي محتتن. بالأمس كنا رفقة، واليوم أصبح في الكفن. يا للمصائب إذ أتت في دهشة تنسي الوطن. في دهشة تنسي الوطن. بلا سكن، والقلب يصرخ يا زمن. يا زمن، والعين تذرف من أسى، والقلب عانقه الحزن. والقلب عانقه الحزن. فأروح أذكر ما مضى من صحبة كنا معا. كنا نسير أحبة، فتزول آهات الحزن. فتزول آهات الحزن. فرحي إذا أبصرته تنزاح من عين المحن. واليوم صار بمرقد فردا وحيدا في السكن. فردا وحيدا في السكن.
الزمن، وسأدعو ربي جمعنا تحت الظلال بلا وثن، تحت الظلال